wardegdega magaalada muqdisho hadda wararka aan ka helayno waxa ay sheegayaan in aaga isgoyska number 4 ee magaalada muqdisho ama kilometer 4 sida uu taqaanaba waxa ka dhacay qarax rasaas ay dadka deegaanku maqleen goobjoogayaal ayaa noo sheegay ciidamada ammaanka oo aan xog ka helnay in hotel lagu magacaabo Africa oo ku yaala aaga CID-da muqdisho waa xarunta baarista ee booliska ee la weeraray isla markaasna koox dableeyay halkaasi iminka ay ka dagaalamayaan oo dhawaqa xabadda la maqlayo dadka magaalada muqdisho oo iminka intooda ugu badan ee hoyaa tagayeen isla markaasna wadadaasi ay ahayd mid mashquul badan ayaa qasaare la soo warinayaa inkastoo aan laga hordhici karin qatarta dhacday ee qaraxyada ah haddana wararka aan helnay waxay xaqiijinayaan in hotelkaas Africa la yiraahdo ma ahan Afrique oo ku yaala aaga wadada loo aado airportka waa hotelka la yiraahdo Africa oo aaga CID-da ku yaala waxaana la soo warinayaa in qasaaro baaxad leh halkaasi ka jirto inkastoo aan ilaa iyo hadda hubanti lahaynin saraakiil amni oo aan la hadalnay ayaa noo xaqiijiyay in hotelkaasi la weeraray wararkan wixii ka soo kordha daawade adiga ayaa ugu horeeyay cidda maqasha ee daawata aragtana xogtan iyo qasaaraha jiraba